وحاد عجب بدن إن أد واحد ماشان كقبان يسبب جرم ويده لأن يرد وحعانا وحيد هذان نولشان كدالي بيد هذان مركانا كبحابا ربا وكدالي هذا نفتاد حسيلي ويده نولشا أدبقا كقبطه وحضنه شيء جرم ويده الأمن نفسي هداد ويده أمني وحا وغفي عن الأمن نفسي إن نفتاد كلسونك وقبطه إن وحضنه شيء جرم يسيد أدي نفتاد إن إذا إسكسو هرشيدين waxaad u daalayso inaad garanayso waxaad wax u cunayso inaad garanayso meeshaad u socoto inaad garanayso ha huwa al-amn ama hadaad majhuul tahay meelaad u socoto iyo waxba aanad garanayn waa dhib haddii aad iimaanka weydo waad nabad weyday nabaddu tan daahiriga ma aha qura waxaan aad u jeclay inaanan hadalka badin laakiin waxaan kaloo jeclay inaad kelmadda garataan waa kelmad aan oran karo haddaynu ku dhaqanno noloshaba furheedii waynu helaynaa basharka dunida ku nooli ee ilaahay diiday subxaanahu wa tacaala baadinimo dhammaanteed wuu tijaabiyey xadaaraat dad mujtamacaad bulshooyin ayaa tijaabiyey albaabka waddada alle in la iska xidho bal wixii kaleba la tijaabiyo taariikhda laguma hayo ummad liibaantay maraykanka bay yidhaahdaan 25 milyan oo muraahiq teenager baa jooga bay yidhaahdeen 25 milyan ee teenager half a million baa isku daya sanad kasta inay istilaan bay leeyihin hadda waa dhallinyaradii baan ka warramaya kuwa waaweyn iyaga idinka warrami maayo tiradooda ninku da'da yartahay waa markaanu dunidaba wax badan ku ogeyn لكن دايرته هداي بلوضين يدو سعيش سكا ورن ودادي ان مشكلات كان ولد بولي واجهين ايا وحي تلماما يا نص مليون بني ادم كاير يرين ويسكو ضيين ويستيلو وحي لين لحكن او عرورا كوغو ليستين نفتس كقبط وانا للقوس شوكته ولا وانا للكديت شوكته ونلاشا كلفتي markii dawladahan qaar ka mid ay arkeen dadkoodii iyo naftuun iska jaraya dad lacag haysto oo dhaqaale haysto wax haysto hadana naftu iska jaraya ayaa dawladaha ka mid waxay tiri wareedhaha aan isku dayna inaynu ogaano sababta dadkeenu isu dilayaan dabeetana dawladda waxay go'aan qaadatay in la sameeyo meel dadku isku dilo oo dawladdu leedahay ومنحر بشري إسلوتري هلكي حولها لغو غالي جري ميل دادك لغو قالا إني دولة فرطه وايو waxay yidhaahdeen waxaynu rabnaa inaynu ogaano waxa ka dambeeya maxaa ka dambeeya waxay yidhaahdeen qofka raba inuu isdilo kow marka hore ha laga qoro questionnaire sheegaya bal sababtu isu dilayo waxaanu nolosha u nacay bal dadku waxay nolosha uga daaleen in la weydiiyo waxana isu dilayaan in la weydiiyo si cilmi baadhis loogu sameeyo waxaan in la daweyn karo ka labaad bay yidhaahdeen in la isku dayo dadka in la qancin karo aqoon-yahanana ha la dhigo dadka la taliyo oo nolosha jeclaysiyo yidhaa war isdiline naftaada hayso oo baaqi noqo hadday intaasi suurtoobi weyda bay yidhaahdaan qofka ha laga qoro dardaaranka oo qadaayaadkan dhaqaalaha iyo waxa kan iyo wixii lagu lahaa iyo wuxuu cid ku leeyahay iyo hantidiisa iyo bal waxa laga sameeyo inta kadibna ha loo sheego sida ugu fudud ee loo dhinto la isu dilo dawladda sheegaysa marka waxa la leeyahay noocaas irbad baa lagu mudayaa inta soo daqiiqo qaadanaysa inaad dhimato noocaas waxa saad sameynaysaa inta soo daqiiqo qaadanaysa ifra loo kala hal la dooransiyo sidii isu dilayo wala go'aamiyay waana la furay waxa la moodayaa wal dadka istilaynay dad yar yihiinuun waddanka dadkii joogay in badan oo ka mid baanba meeshii kuyuu qabsatay shaqaale badan bay meeshii u baahatay dadkiina wuxuu wada damaaciyay inuu isdilo dabeetana qadiyadii waa soo karto oo dawladdii waxay tidhi khatar baa lagu sugayay dadkiiba kuyuugu haysta maxaa xalaa waxa la yidhi baabkaan iska xidho nin waliba gurigiisa isku ciijiyey ayay dawladdu waxba ka geysanine ha la joojiyo
ولا جوجي محاكا دغاي امدي meel la isku biraynay inay kuyuga u haysato kuyug gowraca inay dad galaan maxaa ka dhigay wax maqan baa jiro dadku laayihiin maxaa ka dhigay bugaagta maraykanka bay dhahay bugaagtii bestselleriska ugu fiicnaa la iibsada waxaa ka mid ahaa buug ka warramayay sida la isu dilo maxaa ka dhigay buugga dadku ugu gadasho badan inuu ka warramo sida la isu dilo dadka u baahnaa inay dhintaan waxaanay u baahnayn may sameeyeen maxaa ka dhigay bashar inuu sidaa u fakaro waxa weeyaan albaabadii noloshaa soo xidhmay waman acrada can dikrii faina lahu maciishatan danka wanaxshuruhu yowma alqiyaamati acma insaanku soo jiray wuxuu la'yahay inuu garto war maxaan u noolahay maxaan meeshan ka qabanaya xagaan ka imi xagaan ku socda maxaa dambeeya maxay noloshu tahay waa la garan waayey yaa sheegi lahaa waxa sheegi lahaa ciddii abuurtay wuxuu u nool yahay meeshuu ka yimi xaguu ku socdo meeshuu ku dambayn doono waxay ahayd in la weydiiyo kamaradan hortayda taalla oo kuusano meel taalla haddaan arko garan waayo wax allaali waxay qabato asaan see garanaya injineerkii sameeyo halkan taagan soo ma ahayn inuu idhaahdo war injineer bahashan maxaa lagu qabtaa markaasuu ku odhan lahaa dadkaa lagu sawirtaa waxbaa lagu sawiraa halkaasaa lagu dhagaa saasaa loogu kaydiya isagaa sharxi lahaa waxay isweydiin lahay war basharka yaa abuuray haynoo sharxa dee waxaa lagu falaya basharka ilaahay baa abuuray subxaana wa tacaala alaa yaclamu man khalaqa wa huwa latiifu alkhabiir idan isagu waa inuu inoo sharxaa haddaad diiddo markaa sharaxa alle maxaa dhacaya waxaa dhacaya waman acrada can dikrii faina lahu maciishatan danka cidda ka jeesata aniga hanuunkayga baa ilaahay leeyahay subxaana wa tacaala wuxuu leeyahay nolol aad u cidhiidhiya amaa cidda raacda waxay leeyihin baa layidhi nolol xasiloon aladiina aamanuu walam yalbisuu iimaanahum bidulm ulaa'ika lahum alamnu wahum muhtaduun kuwa iimaanka laga helay baa ilaahay yidhi ee aan iimaankooda ku dheehin ama ku marin dulmi shirki aan ku darin ulaa'ika lahum alamnu wahum muhtaduun kuwaasaa nabadgelya u sugnaatay amni waxa ugu fiican alamni nafsi inaad naftaada kalsooni ku qabto inaad waxaad u nooshay garanaysid adiga iyo naftaadu inaydan iska soo hor jeedin waxaad u daalayso inaad garanayso waxaad wax u cunayso inaad garanayso meeshaad u socoto inaad garanayso ha huwa alamn ama haddaad majhuul tahay meelaad u socoto iyo waxba aanad garanaynin waa dhib dhakhaatiirta haddaad u yeedho tidhaahdo ishu maxay qabataa maxaa loogu talagalay xikmada ishu maxay tahay haddii bini aadamka la indhatiri lahaa maxaa dhici lahaa oonu ilba lahayn waxay ku leeyihin de waxba ma arkeen isha tani waa mas'ale cajiiba oo quraarado kala dambeeya oo halkanoo saatana waa la sharxayaa dabeetana se ifka ka yimaado shaygaa isha ku dhaco halkan baa sawirku ku sawirmaa maskaxdaa tarjunto dee waa wixii wax lagu arkayaa lagu leeyahay nacam waa fikrad fiican sanku muxuu qabtaa hadda wuxuu ku leeyahay bini aadamku waa ma noolaadaan haddaanu qurmuunka iyo urta iyo kan iyo waxaan kala garanayn hawaduba sambabka may tagteen haddaan sanka timaha yaryare ku yaalla qashinkan iyo waxaan ka reebaynin wahaluma waxbaa la sharxi kalidu maxay qabataa allah waa miisaanka qofka bini aadamkaaba isu tayo haddii aan kaliyuhu ku jirin waxaad cunto maalintaad muus cuntana kaalshiyam iyo kanbaa kugu badan lahaa maalintaad beriska cuntana mid kalaa kugu badan lahaa yaa kuu miisaama waxaanaad cunto adigu calooshunbaad u dirtaaye dhiigunbaa soo maro kalidunbaa kala safayso intii dheeraad kuga aba dabadday u tuurtaa haye markaa waa miisaanka bini aadamka noloshiisaba hayo waxaanu isku daliiqaya cunayo halkan baa u kala hagaajisa beerku muxuu qabtaa sunkuu ka qabtaa waxaanoo dhan marka la sharxo mid walba xikmaddeeda lagu sheego haddaad weydiiso waaye insaankana maxaa loogu talagalay haddaba isku wada darbo ishiisa iyo dhegtiisa iyo maskaxdiisa iyo caqligiisa iyo calooshiisaba isku dar maxaa xikmadda ka dambaysa alla haadihi falsafa bay ku odhan doonaan falsafaad wadda wuxuu la mid yahay inaad weydiiso gaadhiga taayirku muxuu taraa markaasuu ku leeyahay taayirku dee waa bahalladii uu ku soconaya waa ka haa shaaftku maxay tartaa dee waa ta wareejinaysa steerinku muxuu taraa waa ka weeciyo gaadhigu markaa maxaa uu yahay xikmadda loo sameeyey hadduu ku idhaa la garan maayo ka war ninkii taayirrada sharxayay
steerinka sharxaya waxaan sharxayay markay gaadhi soo gaadho hadduu ku yidhaha la garan maayo gaadhiga waa waali cusub waalidaasuu basharku sax iminka u haystaayo u ku socda in laba garan waayo wixii lagu abuuray أحد الدكاترة العالم الإسلامي وعلوعي لم يدين نين دون مركب سوتاقي هل كان عبارة دبيتنا مركب كاكو شرحي صوفولك ولا صوفولة ومشى سيحاني سين مسقوليه هل كاكو بدكو عياري سين هل كابودبودي سين واكر مركب قدوي بالغو شرحي قاتل هذا حقوق بنايا دبيتنا كو يراق قرن مايو قدام حد كود وضع دان ميلوس عضا ولا قرنين haddaad tidhaahda bini aadamku waa ka noolow sidan baa loo seexda daar baa la dhistaa halkaa la jiifsadaa tareenkaa la fulaka waaye xaggee noloshaani ku dambaynaysa xaggaad qabanaysaa maxaad u nooshay waxaad u nooshayba haddaad garan weydo maxay noqonaysaa waxaad ka liidataa labada kabood aad xidhantay waayo kabaa waa la yaqaanaa waxa loo sameeyey kabaasoo lama yaqaano waxa loo sameeyey waa la garanayaa in lagu socdo oo la gashado oo qodaxda iyo barafka iyo uska gaba ay kaa celiyaan baa loogu talagalay adiga se lagu garan maayaba waxaad u nooshay mar haddaan adiga lagu goranay kabtaa dhaanta waayo kabta waxay u noolayd koobkan waa la garanayaa shaqada loo sameeyey xikmada koobka ninkii soo sameeyey uu sameeyey wuu sharxo wax ku shubta buu yidhi waa one time use baaqigiisana iska tuura buu yidhi waxba ku fali maysaan ama adiga xataa inaad one time use tahay cidi garan mayso waxaa meesha ka muuqata insaanku hadduu caqiide waayo hadduu hanuunka waayo hadduu manhaju ku noolaado waayo nolosha korraysu ka dhacaa oo wuxuu noqdaa nin gudcur guuraynaya waxaynu leenahay icraadka ama jeesiga laga jeestay ilaahay kitaabkiisa wuxuu la mid yahay nin gudcur lugaynayo oo la siiyey toosh oo yidhaahda uma baahniye aan iska gebgableeye iska kayda haddaad meel madow lugayso oo gudcur ah oon waxba la arkaynin maxaa dhacaya marna cagta meel yaro fiican baad la heli marna mas baad ku joogsan marna geed baad dhalada uga bixi marba meelun baad cagta dhigi khabtu cashwaa baad socon doontaa caqligu waxbuu ifiyaa laakiin wax yar buu ifiyaa caqligu wax waa ifiyaa laakiin wax yar buu ifiyaa oo wixii loogu talagalay ku saabsan shay ma jiro isagu isu dejiya nolosha wuxuu qaban lahaa ee shay kasta cidda samaysaa u garata wixii looga jeediyey xikmaddii laga dan lahaa iyo waxa laga rabay inuu qabto caqligu wuxuu la mid yahay nin laambadan yare hortayda taalla intuu dunida sudhay yidhi way ifinaysaa miyaanay iftiin lahayn haddaad ku doodo miyaanay wax ifinin sawtaa marka biiska lagu ifiye wax walbay ifinaysaa sax waxbay ifisaa laakiin qol bay ifisaaye caalamka ma ifiso caqligu waxbuu ifiyaaye laakiin isagu isma ifiyo isagu isma garto isagu wixii loo abuuray isma garto shayna isagu isma garto waxuu la mid yahay qof yidhaahdaa cadceedda tan naga dah aynu tooshashkeenna iska ifsannay maanta bashariyadu waxay ku nooshahay cidhidhi halkii u dambaysay aqoonyahan badan oo ka tirsanina wuxuu arkayaa waddada la hayaa inaanay wax nololi ka suurtagala ahayn laakiin hal min makhraj meel looga baxa ma la hayaa alle subxaana wa tacaala wuxuu leeyahay hanuun aniga xaggayga hadduu idinka yimaado faman ittabaca hudaaya ninka raaca baa ilaahay yidhi aniga hanuunkayga waxa aan soo diray ciddii raacda falaa yadil walaa yashqa laba shay waa ka badbaadayaa baa ilaahay leeyahy subxaana wa tacaala laa yadil ma lumo qofka bini aadamkaahi marka uu wax raadinayo haddaad dariiqa sawaabka a weydo oo aad lunto waa khatar si aad ugu soo laabato waddadaadii saxayd waa meel fog haddaad raacdaan baa ilaahay leeyahy aniga jidkayga lumi maysaan dariiqii sawiga ahaa ka lumi maysaan waa kow ka labaad ilaahay wuxuu leeyahy walaa yashqa kadeed mina maysaan kadeedanku waa maxay haddii aynu ku dayno balkan ku eeg socon waa kan kale ku eeg socon waa waad kadeedmaysaa dee maalin walba markaad wax tijaabiso
basharkuna sidiisaba caqliga yare uu leeyahay kolba nisfu xaqiiqa buu helaa in yaroo xaqiiqada ka mid iyo in badanoo baatilo isku naba dabeetana marka inta baatilkii inta xaqa kharibto ayuu haddana yidhahdaa kan ha laga bedelo meel kale ha loo kaxeeyo ilaahay wuxuu ina leeyahay bini aadamku uu ka qaalisay wax tijaabo lagu qaado looguma talagelin in tijaabo la mariyo ee waxaa loogu talagalay inuu si sawiya si qumman oo toosan ilaahay abuuray uu u caabudo u garto noloshiisa si uu u maamulo aakhirana uu u liibaani karo sidaa awgeed baa ilaahay leeyahay aniga kayga haddaad raacdaan labadaa shayba waa ka badbaadaysaan baa ilaahay leeyahay addalaalu waashiqaawa baadi iyo kadeed iyo hoog labadaba waa ka nabadgelaysaan xaggee lagaga nabadgelayaa fi ddunyaa wa fi alaakhira adduunkana waa lagaga nabadgelayaa kadeedka iyo baahida aakhiro kadeed iyo baadinimada ugu badani jirtana waa lagaga nabadgelayaa baa ilaahay leeyahay subxaana wa tacaala haddiise la diido maxaa dhacaya طريق السلامة با إلهي تلمام هدينو كواعنو إلهي وحلي ومن أعرض عن ذكري أنيقا هنون كيغا نينكا كواعدانا فإن له معيشة ضنكا وحلي نولو العديد يبا إلهي لي سبحانه وتعالى نولو العديد يا نولو لان دقناشي لهين نولو الحسلوني دو كم مقنطهي نولو لان سعادة لهين nololaan raaxo qalbiyeed lahayn nolol cadaabkii jahannameed ka dambeeyo oo iyana haddii mar qudha lagu quusiyo waxaad soo dhadhamisay ba aanad dareemaynin waman acrada can dikrii faina lahu maciishatan danka aakhirana wanaxshuruhu yowma alqiyaamati acma aakhirana isagoo indhala ayuu soo xaadiraya bale ilaahay qur-aanka wuxuu ku tilmaamaya inuu imanayo isagoo summun bukmun cumyuna inuu imanayo qofka indhaali dariiqa sawaabkaa ma arko laakiin wuu hadli karaa war xaggaan maraa buu odhan karaa haddii afka lagaa xidhana cidna ay caawi odhan kari maysid laakiin waaba laga yaabaa in qofku ugu tatawuco ku yidhaha war ka weeca meesha ha ku dhicine dhegahana wuu la'ya baa layidhi idan aadaatu najaat dhammaanteed baa waa beelaya lama caawin karo oo isagu wax ma arkayo oo caawimo ma dalban karayo ee waa lumayaaba ilaahay leeyahay subxaana wa tacaala qaala rabbi lima xashartanii acmaa waqad kuntu basiira ilaahu maxaad anigoo sidan ay soo xaadirisay buu leeyahay anigoo mid wax arki jiraya qaala kadalika atadka aayaatunaa fanasiitaha wakadalika alyawma tunsa aayaadka yagii baa kuu yimi baa ilaahay leeyahay subxaana wa tacaala dabeetana waad iska indhamartay nasu allaha fanasiyahum aayaadkaygii baa kuu yimi baa ilaahay leeyahay subxaana wa tacaala waad garab martay sida awgeed ma helaysid wax ku gargaara waman yucrid can dikri rabbihi yasluku cadaaban sacada dariiqii ilaahay ciddii ka weecatay nolosha way ka quusatay meesha waxaa taalla ikhwatii fi alcaqiida bashariyadu ama bini aadamku kownka ku nooli wuxuu u baahan yahay ilaahay hanuunkiisa iyo cid gacan qabato oo jiidda oo jidka saxa ah u tilmaamta muslimkuna waa u baahan yahay gaalkuna waa u baahan yahay dadkoo dhan baa u baahan in gacanta la qabto dariiqa sawaabkaa la tusiyo waayo kaasaa nolosha dhabta ahi ku jirta man camila saalixan min dakarin aw untha wa huwa mu'min falanuxyiyannahu xayaatan طayiba cidda camal suuban samaysa lab iyo dhadig midkuu doona ha ahaadee wa huwa mu'min walxaal huwa mu'min iyadoo iimaan uu weheliyo iimaan iyo camal suuban cidda la timaadda ilaahay wuxuu leeyay falanuxyiyannahu waanu noolayn doonnaa oo miyaan iminka la noolayn iminka nolol kufriyaa la noolyahy nolol aan meelay u socoto la garanayn baa la noolyahy amaa marka kan xayaa nolol kalaa la noolaanayo waa maxay falanuxyiyannahu xayaatan طayiba baa ilahay yidhi nolol fiican baanu noolaynaynaa baa la leeyay subxaana wa tacaala aakhirana walanajziyannahum ajrahum biaxsani ma kaanuu yacmaluun